Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Casharkeennii imtixaanaha ahaa ayaan dhigan doonaa insha Allah. Solving linear equation waa qaybtii afraad. Tusaalihii afraad weeyi. Markaa 6 su'aalood ayaan insha Allah ka shaqayn doonaa. Casharkeennii noo socday ee imtixaanaha ahaa. Su'aasha koowaad intaas weeyi. 1/7 equal x over 21. B waa intaas weeyi. C duna waa intan waa 6 su'aalood waa A up to F weeyi. waa 6 su'aalood markaa 6dan su'aalood ayaanu ka shaqayn doonaa insha Allah. Si fiican ila soco. Casharkan waxaan idhi waa imtixaan wuu soconaya. Casharkan wuxuu kaloo ka anfici doonaa xitaa graafka markaad sawiraysid qaabkan unbaad haddaad qaabkan fahanto kaasina waa easy weeyi. Markaas 6dan su'aalood ayaanu ka shaqayn doonaa qaab aad iyo aad u fudud. Si fiican ila soco. Casharka ayaan bilaabayaa si fiican ula soco. Su'aasheena koowaad eeda intana la siiyay. Marka intana la siiyo maxaan dhahanaa? U fiirso. Isweydaar ayaan isticmaalayaa. Cross baan isticmaalay. 21 igu dhufo hal waa 21. 7 igu dhufo xa waa 7 xa. Marka maxaan dhihi 7 xa waxay la mid tahay 21. Waxa aan raadinayna waa xa weeyi. Marka dhan kasta maxaan u qaybin 7 aan u qaybin 7 la saar 7 u qaybi. Maxaan dhahayaa xa baan haystaa 7 21 u qaybi waa 3 xa. Marka maxaan helay xa waxay ii soo baxaysaa 3 bay ii soo baxaysaa. Qiimaha xa 3 ayaan helayaa. x equal 3 baan dhahayaa. Inta ayayna soo baxday. Si aan markaa u hubino checking baan isticmaalanaa. Waan hubinanaa. Checking markaan isticmaalna waxaan soo qaadanaa su'aashii nala siiyay. X maxaan helnayd 3 halka x ii taalo 3 baan gashanayaa. Halka 3 baan gashan. Marka maxaan dhahnaa hal hoos dhigay 7 ayaa la mid ah 3 halkii xa ii taale maxaan gastay inta baan gastay. Haddaan isweydaar isku dhufto 7 3 igu dhufo waa 21. 21 hal igu dhufo waa 21. 21 maxay leegtahay 21 baa dhaxaya. Si kalena waan isticmaali karnaa. 3 u qaybi 7 3 u qaybi 21 waa 7 waa hal loos dhigay 7 hal loos dhigay 7 maxay leegtahay hal loos dhigay 7 ama 21 haddaan isweydaar isticmaalo 3 7 igu dhufo waa 21 21 hal igu dhufo waa 21 waa isleegiin. Haddii kale 3 u qaybi 21 waa maxayna waa 7 hal loos dhigay 7 hal loos dhigay 7 maxay leegtahay hal loos dhigay 7. Labada qaabba waad uga shaqayn kartaa waad ku hubin kartaa. Waad fahanteen baan u maleynayaa labada qaab waan ku hubin karnaa. Su'aasheena labaad u fiirso waa PD inta ayaa la siiyay. Maxaa la yidhi 1/9 x 9ku muxuu ku dhici 5 igu dhacay. 9 5 baan ku dhufanayaa. Maxaan dhahayaa x baa ila mid ah 9 times 3 9 times 5 baan dhahayaa isku dhufo waa 45. Marka x maxaan helay 45 ayay ii soo baxday. Xa maxaan soo helay 45 saan u hubiyo markaa waan checking baan isticmaalayaa. Maxaan dhihi intii la siiyay baan soo qaadan. Maxaa la siiyay ahayd 1/9 times x equal 5. Marka meel kasta ii taale xa maxaan gashan 45. Waxaan dhihi waa hal loos dhigay 9 oo lagu dhuftay 45 yaa la mid ah 5. 45 9 u qaybi waa 5 baan dhahayaa. 45 markaan 9 u qaybiyo 5 baan helayaa. Markaa 5 maxay leegtahay 5 bay leegtahay. Sidaas ayaan u hubinanaa. Waad fahanteen baan u maleynayaa saasaan ku hubinanaa. Waa su'aasheenii labaad weeyi. Su'aasheena saddexaad ee sida negative x over 2 equal 3 baa la yidhi. Labadu 3 igu dhacaysa. Halka halba hoos taala 3/1 weeyi. Halku wuu u qarsoon yahay mar kastaba. Hal igu dhufo xa waa xa negative x weeyi. 2 3 ku dhufo waa 6 marka. Maxaan dhihi negative x equal 2 times 3. Marka maxaan soo helayaa waa negative x equal 6. Marka dhan kasta negative aan u qaybin. x maxaan helay x equal negative 6 baan dhahayaa. x maxaan soo helay negative 6 ayay ii soo baxday.
waan hubinaynaa marka checkingii baan maranaa waxaan dhahnaa intiina la siiyaan soo qaadanaa x maxaan soo helnay negative 6 baan soo helnay halkii ii taalle x maxaan kastay negative 6 negative iyo negative isla saar 6 labo qaybi waa 3 markaa 3 maxay ii leegtahay 3 bay ii leegtahay sidaas ayaan u hubinaynaa markaan hubinayno qaabkaasaan u hubinaynaa waad fahanteen baan u malaynayaa halkan waa real matters su-aasheena afaraad ee diida tii hore negative ahayd kan waa positive 7 igu dhufo 2 7 times 2 x baan dhahayaa equal 2 times 7 laba 7 ku dhufo waa 14 marka x maxaan helayaa x equal 14 baan dhahayaa x waxay soo baxday 14 waan hubinaynaa marka checkingii baan marnaa waxaan dhahnaa wixii la isiiyey marka hore soo qaado intii la isiiyey x maxaan helay 14 baan dhahayaa oo loos dhigay 7 labada qaab waa isticmaali kartaa 14 loos dhigay 7 yaa la mid ah 2 14 7 qaybi waa 2 14 markaan 7 qaybi waa 2 2 maxay ii leegtahay 2 ii leegtahay sidaas ayaan u hubinaynaa halkan waa real matters haddaad youtube-ka naga daawanayso subscribe noo saar si uu gaadho ardayda Soomaaliyeed wherever they stay haddaad facebook naga daawanaysana follow na soo dhe si arday kastoo Soomaali waarshanaad intana la isiiyey adoo iswareegin 3 xun 5 igu dhufo maxaan dhihi waa 3 igu dhufo 5 xaana 5 marka maxaan dhihi waa 5x baan dhahayaa 5x equal 5 lagu dhuftay 3 waa 15 marka waxa aan raadinayno oo maxayna waa xa dhan kastaba 5 xa markaan 5 la saaro xa baan helayaa 15 5 u qaybi waa 3 baan dhahayaa 15 markaan 5 u qaybiyo 3 baan helay marka xa maxaan soo helay x equal 3 baan dhahayaa kabacdi waan hubinaynaa checkingii baan maranaa waxaan dhahnaa intii la isiiyey marka hore soo qaado waa 5/3 x equal 5 halkii xa ii taalle maxaan gashan 3 baan gashan halkaas waxaan dhihi waa 5/3 times 3 equal 5 3 la saar 3/3 maxaan haystaa meesha markaa 5 maxay ii leegtahay 5 bay ii leegtahay waad fahanteen baan u malaynayaa halkan waa real maths haddaad youtube-ka naga daawanayso subscribe noo saar like na saar sida u gaadho arday kastoo Soomaaliyeed haddaad facebook naga daawanaysana like ta ha iloobin followgana ha iloobin si u gaadho ardayda Soomaaliyeed dhammaan meel su-aasheena 6aad efta waxaa layidhi 20 oo loos dhigay 2 oo loo geeyey xa yaa ila mid ah 3 xa marka maxaa isku eg x iyo 3x halkan waa plus markaan x hal x hal 3 iga jir waa 2 marka maxaan dhihi 20 oo loos dhigay baan dhahayaa 2 ayaa ila mid ah 2 xa 3 baan ka jaray hal xa 2 xa baan helay 2 igu dhufo markaa 2 waa 4 xa baan dhahayaa 4x weji markaan 2 times 2x aan dhaho waa 4x baadiga arkaya 20 kuna waa ka halka yaala haddii kale waxaan dhihi karaa 20 labo qayb waa 10 baan dhahayaa iyo 2 10 baa ila mid ah 2 xa dhan kasta 2 maxaan heli xa 5 bay soo bixi ama 4 20 qaybi 5 baan helayaa labadaba haddaad isticmaasho haddaan 22 u qaybiyo 10 baan dhahayaa 2 xa 2 u qaybi 10 waa 5 haddaan dhaho 20 u qaybi 4 waa 5 labada jeerba intaas ii soo baxaysaa waan hubinaynaa marka x maxaan soo helay 5 baan soo helay checkingii baan maranaa waxaan dhahnaa wixii la isiiyey marka hore 20 oo loos dhigay baan dhahayaa inta meel kasta waxa ii taalla maxaan gashan 5 baan gashan marka waxaan dhihi 20 oo loos dhigay 2 oo loo geeyey 5 baan dhahayaa 3 lagu dhuftay 5 ayaa ila mida 20 oo loos dhigay 2 15 5 3 igu dhuf waa 15 5 taasoo bareeji kala jar waa 10 20 labo qayb waa 10 weji
haddaan u qaybiyo 20 labaan u qaybiyana waa 10 10 u gee 5 waa 15 saddex 5 igu dhufo waa 15 labada qaab waad isticmaali kartaa 15 maxay leegtahay 15 ama 10 maxay leegtahay 10 bay leegtahay labadaba waad isticmaali kartaa markaan dhahno aan hubinno waa inuu equal isla ekaadaan labada shay waad fahantaan umaleynaya tusaale ahaan imika waxaan helnay 10 waxay la mid tahay 10 ama 15 waxay la mid tahay 15 haddaan 20 laba u qaybiyo waa 10 shanta u gee waa 15 saddex igu dhufo 5 waa 15 15 maxay leegtahay 15 haddaan qaabkan kala isticmaalana waa sidan ayay soo baxaysaa waad fahanteen baan umaleynayaa halkan waa real maths haddaad naga daawanayso youtube-ka subscribe noo saar followna na soo dheh haddaad facebook naga daawanayso like tana noo saar